habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Mawlid Xaaji Cabdi qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin 9 kooxood oo mucaarad ah ayaa Itoobiya kaga dhawaaqay dhismaha isbahaysi si ay u ridaan dawladda iyadoo dagaalyahanka Tigreego ay ku sii siqayaan magaalada caasimadda warbixin dheeraad ah ayaynu idinkaga haynaa wararka kalena waxaa ka mid ah iyadoo maalintii shanaad uu galay shirweynaha caalamiga ah ee COP26 waxayna warbixin gaar ah idinkaga haynaa dadka isbeddelka cimilada ku barakacay ee Soomaaliya UK ayaa noqday dalkii ugu horeeyay dunida ee laga ogolaado kaniiniga ka hortagga cudurka COVID-ga miis shaah la saarto oo shaqooyin kala qabanaya iyo mootada casriga ah ee curyaaminta ee dadkii soo saaray la siiyay abaalmarin ayaynu idinkugu haynaa caawa iyo barnaamijka Click kala soco BBC News telefishinka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkana waa caawa iyo caalamka waxaynu ku bilaabaynaa Ethiopia halkaasi oo 9 kooxood oo dawladda ka soo horjeeda ayna ka mid yihiin jabhadda xoreynta ee TPLF iyo ciidanka xoreynta oromada ee OLF ay isku raaceen dhismaha isbahaysi liddi ku ah maamulka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed afayeenka OLF ayaa sheegay inay ku biirayaan sida uu sheegay xoog markaasi ballaaran oo joodkoodu uu yahay in ay ridaan kaligi taliye Abiy isagoo markaasina sheegay in yoolka degdega uu yahay sidii xukunka ugu tuuri lahaayeen ra'iisul wasaaraha waxaana markaasi la sheegayaa in uu tilmaamay inay jiri doonaan wada hadallo ay qayb ka noqon doonaan dhammaan dhinacyada ay qosayso si buu yiri loo dejiyo mustaqbal la aqbali karo oo dadka oo dhan markaasi ka dhaxeeya haddaynu eegno markaasi tani waxay imaanaysaa iyadoo cadaadis ku kordhayo Mr. Abiy xogaga mucaaradka ayaa ku wajahan magaalada caasimadda ah jabhadda OLA iyo TPLF ayaa mar horeba iska barbar dagaalamayay toddobaadkanna waxa ay sheegteen inay qabsadeen magaalada Kamisa oo 325 kilomitir waqooyiga kaga beegan magaalada Addis Ababa dawladda Ethiopia dhinaceeda waxa ay sheegtay in ay guul qarka u saaran tahay isla markaasna ay sii wadi doonto waxa ay ugu yeertay dagaalka jiritaanka waa kan afayeenka dawladda oo faahfaahinaya arrintaasi waxaynu u dagaalamaynaa xaqa aynu u leenahay ayaka talinteenna inta badan shacabka Itoobiya aad ayay u necab yihiin TPLF Itoobiyaanku waxay soo arkeen in ku filan oo ah nacaybka ku salaysan qowmiyadaha kala qaybinta iyo naxariis darrada TPLF sida ugu degdegsan ee saaxiibada adduunka ay u garwaaqsadaan ixtiraamka rabitaanka dimuqraadiyadda ee dadka ka badan 40 milyan ee Itoobiyaanka ee codkooda dhiibtay waa inta ay nagu caawin karaan si aynu uga gudubno caqabada culus ee na soo food saartay dawladaha saaxiibka la Itoobiya ayaa ku baaqaya in la soo afjaro colaadda laakiin labada dhinac ee ku lugtooda dagaalka ayaa dhagaha ka foreystay baaqyada ku aadan in hawlgallada military la joojiyo wariyaha BBC-da ee Afrika Katri Bryonga ayaa faahfaahin ka haysa dhismaha isbahaysigan cusub waxa aanu ku aragnay isbahaysigan maanta waa xaqiiqda ah in ay leeyihiin kooxo matalaya qowmiyado kala duwan waxaa jira Soomaali Oromo ayaa qayb ka ah isbahaysigan laakiin qaar kale oo iyaguna yaryar ayaa jira sidoo kale waxa ay sheegayaan in xamaasadooda ay u gudubtay dhanka dawladda waxayna sheegeen in hadda la bilaabi lahaa in laga fakaro sida uu dalku ku socdo haddii ay dhacdo in xukuumadda Abiy Ahmed ay dhacdo bal markana aynu eegno qodobada kale ee wararka caawa ku jira Niger ayaa lagaga dhawaaqay 2 maalmood oo barardiiq qaran ah kadib dilkii loo geystay ugu yaraan 69 qof oo lagu dilay weerar ay qaadeen kooxaha xagjirinta weerarka ayaa ka dhacay gobolka Tilbury ee koonfurta galbeed dalkaasi una dhow xuduudda dalka Mali 9 qof ayaa la sheegay in la laayahay kooxaha xagjirka waxay iskaga carareen xuduudda ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarka
Iiraan ayaa sheegtay in wax ka yar bil gudaheed ay laba jibaartay keedkeeda macdanta uraniumka ee la tiyeeyay iyadoo isku diyaarinaysa in ay dib u bilowdo wadahadallada ay la leedahay quwadaha caalamka ee lagu xakameynayo barnaamijkeeda nuclearka. Talabadani waxay ka macno tahay in ay soo saarto 90% uraniumka la tiyeeyay, taasi oo loo arko inay tahay heer farsamada hubka ah. tayada hawada magaalada Delhi ee caasimadda Hindiya ayaa weli waxaa lagu soo warramay inay tahay mid dareen leh iyadoo maanta dadkuna ay sii wadeen ridista boroleerada si ay ugu dabaaldegaan ciidda Diwaaliga. Inkastoo la mamnuucay ridista boroleerada balse tani waxay sii xumaysay hawada magaalada. Dadka deganna waxay ka cabanayaan cunaha iyo indhaha oo cuncun markaasi oo ka soo foosaaray, taasi ugu wacan tahay daqiiqa. saynisyahano ka tirsan jaamacadda Oxford ayaa daha ka qaaday hidiside laba laab ka dhigaya halista sanbambada u shaqayn waayaan iyo dhimashada ku aadan COVID-19. Khubarada ayaa sheegay in 60% dadka ka soo jeeda koonfurta Aasiya iyo 15% dadka isirkooda Yurub ka soo jeeda ay wataan noocyo khatar sare oo hidisadaha ah. Cilmi baarista ayaa laga yaabaa inay sharaxdo sababta dhimashada ay ugu badnayd bulshooyinka qaar intii lagu jiray mowjadaha fayraska corona. kumanaan kun oo dhalinyaro ah ayaa isugu soo baxay socod ay ku marayaan magaalada Glasgow maanta, halkaasi oo ka socdo shirka COP26. qaar badan oo ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa aad uga shakaysan khudbadaha iyo ballanqaadyada ay sameynayaan madaxda adduunka toddobaadkan. Gabadha reer Sweden ee u dhaqaaqda deegaanka Greta Thunberg waxa ay ka mid ahay dad badan oo dadka deegaanka u ololeeya oo Khamiistii hadlay, isla markaasna dhaleeceeyay shirka kuna tilmaamay xaflad iyo shir iska caadiya. Dhalinyaradu waxay la kulmi doonaan markaasi sida la sheegayo isbeddelka ugu ba'an ee cimilada haddii aan si ku filan wax looga qaban oo aan la joojin. Laakiin qaar badan oo ka mid ah dadka u dhaqaaqa deegaanka iyo dhalinyarada ayaa sheegaya in walaacooda la iska indha tiray. dhinaca kale isbeddelka cimilada inkastoo uusan Soomaaliya aysan ka mid ahayn wadamada sida weyn hawada wasaqda ugu sii daaya, haddana waxaa jira dad aad u badan oo dhibaatooyin ay soo gaareen isbeddelka cimilada sida fatahaado, abaaro soo noqnoqday. Warbixintan magaalada Muqdisho waxaa ka soo diray Maxamuud Cabdilcasiis. waa hooyo ku nool mid ka mid ah kaamanka barakacayaasha ee ku yaala duleedka Muqdisho. waxa ayna barbaarisaa 8 carruur rajo ah oo ay gabadheeda ka dhimatay. fatahaado ka dhacay shabeellada dhexe ayay 4 bilood ka hor ka soo barakacday. in isbeddel ku yimid deegaanka ay ku nooleyd ma moogana, laakiin isbeddelka guud ee cimilada adduunka ee ay boqolaalka dal ee dunida uga shirayaan UK fahan iyo aragti midna kama haysato. mar hor maya tan oo kale waa ii dhimantahay, tan oo kale waa ii dhimantahay bane, tan oo kale waa ii dhimantahay, waa deganaa jirto ii balcad waa la yaabanahay ani ya maxadayna waa ka ilma dhale may beeraan tacabanahay. fuusta lagu shubi galeyda, digirta fuusta lagu shubi jiray, khudaar leen soo qaadi jirna hamar keeni jirna anag khudaartaas la tacaawaya mar keenaya. hadda waa kana saanaanahay baqiiraanahay. guud ahaan dadka ku nool dalalka saboolka waxa ay soo saaraan hawasaqow ka yar tan dadka ku nool dalalka hodanka ah. haddii aynu eegno celcelis ahaan hawasaqowga u abuuro qof kasta oo Mareykanka ku nool waa ilaa 16.1 tan sanadkiiba. Shiinaha waa ilaa 7.1 tan. UK waa ilaa 5.5 tan. laakiin Soomaaliya celcelis ahaan waa 0.3 tan sanadkiiba. dalka Qatar oo dadka ku nool ay aad u yar yihiin waxa uu soo saaraa saliid iyo gaas. celcelis ahaanna hawasaqowga waxaa qofkiiba ku soo beegma 38.6 tan sanad kasta. Soomaaliya waa dal taariikh ahaan aan mas'uul ka ahayn qiiqa kaarboonka ee sababay isbeddelka cimilada. haddana isbeddelka cimilada aad ayay u saameeyeen Soomaaliya. waxay ila tahay shirka COP inuu muhiim u yahay Soomaaliya maxaa yeelay waxa uu marayaa heer ay Soomaaliya wax ku biirin karto aragtida dalalka ay saameysay isbeddelka cimilada ee ajandayaasha caalamiga ah. UK waxay taageeraysaa arrintaas iyo in codka sida Soomaaliya iyo gobolkaba lagu maqlo wada xaajoodka. dadka Soomaaliyeed ee naf iyo maal ku waayay isbeddelka cimilada ma helaan gacan dawladeed oo rasmi ah. waxaase jira dadaallo kooban oo gobollada qaar ka hirgelinayaan hay-adaha gargaarka. magaalada Baydhabo hay-adda NRC oo gacan ka helaysa xafiiska barwaaqo sooranka horumarinta arrimaha dibadda ee loo soo gaabiyay FCDO
ayaa ka hirgelisay mashruuc dib u dejin ah in dad aad u badan ay ka soo barakacaan meelihii ay ku noolaayeen ee baadiyaha ayna yimaadaan magaalooyinka waaweyn taasoo dhibaato ku noqotay maxaa la yiraahdaa magaalooyinka laftigooda waayo dadkani markay yimaadaan magaalooyinka noloshooda ma garanayaan tii baadiyahana way ka yimaadeen tii maxaa la yiraahdaa gudahana dabcan magaaladana lama qabsan karaan marka waxay u muuqataa haddii aan xal degdeg ah oo waara loo helin in dadka Soomaalida ay saameyn weyn ay ku yeelan doonto oo dhaqaalaha dalka Soomaaliya uu hoos u dhac badan u gaari doono qoysaskani oo gaaraya 2287 qoys ayaa loo dhisay guryo loo hibeeyay si xal loogu helo barakaca ka dhashay isbeddelka cimilada iyo amniga markan la deegaanka hoo barakac iyo qoobsada muhiim waagi hore inta ku guur inta deg inta in ku kacni le inta ku deg tiway ku roosidi way gelin far badan helnay nadaafad helnay guryaalana nindasi geekana dad oo dhul shay degno sabar looga dawladda iyo degmada ee aanarsi fanka biidi nana sii haysana sanad waliba Soomaaliya dad badan ayaa ka barakaca fatahaadi iyo abaaro kuwaasi oo hanti ha joogtee halista isbeddelka cimilada ehelkooda ku waaya iyagoo waliba aanay qaar badani wacyi u haynin halka laga wareemay maxamuud abdicasiis BBC Muqdisho mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqayn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram wali waxay noo soo socda waa miis shaah la saaranayo oo haddana shaqooyin kala qabanaya iyo qodobo kale oo ay ka mid tahay mootada casriga ah ee curyaaminta barnaamijka Click ayaynu goor dhow idinkugu soo gudbin doonaa ولي واحد داونيسان عاوي عالمك أنا قوم مولد حاج عبديه هي إذا لسه عسينيا بل دب أنا ذي حسوسية قضبضة وركع عاوة أجوا وين سجال كوحوط معارضة
Ethiopia ayaa ku dhawaaqay dhismaha isbahaysi si ay u ridaan dawladda iyadoo dagaalyahanka Tigreeguna ay ku sii siqayaan magaalada caasimadda. maalintii shanaad ayuu galay shirweynaha caalamiga ah ee COP26. Soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha isbeddelka cimiladu ay ka dhalisay barakaca. UK waxay noqday wadankii ugu horeeyay adduunka ee ansixiya kaniiniga ka hortagga fayraska COVID. daawadan waa tii ugu horeysay ee nooceeda tijaabooyinkan waxay muujinayaan in kala bar ay yareynayso khatarta cudurka ah in cisbitaal loo galo. daawada ayaa dawladda UK waxa ay iibsatay in ku filan si loogu daaweeyo ku dhawaad nus milyan bukaanada qaba COVID-19. aadan maxamed cabdi saalimiin ayaa warbixintan soo jeedinaya. kaniini joojin kara COVID-ka waxay ahayd yoolka saynisyahanada tan iyo markii uu cudurku bilaabmay. hadda waxaa jira Molnupiravir waxaana ay u badan tahay inay noqoto tan ugu horeysay ee daweynta ka hortagga fayraska. Anna Maria ayaa laga helay fayraska corona talaadadii waxaana ay hadda bilowday Molnupiravir muddo 5 maalmood ah taasoo qayb ka ah tijaabada Liverpool ee UK. waxa ay qabtaa kansar aad ay ugu nugushahay COVID. gebi ahaanba waa xaalad nolol iyo geeri ah. waxaan leeyahay qoys aan u baahnahay in aan ka fakaro haddii ay tani isiinayso fursad aan kaga qayb galo arooska wiilkayga iyo arrimaha kale markaas waan samaynayaa. marka fayrasku corona uu waxyeelayo unugyada waxa uu sameeyaa koobi badan. Molnupiravir ayaa asal ahaan lagu daweeyaa hargabka waxay soo bandhigtaa qaladaadka hidaha fayraska taas oo joojisa awoodda faafitaanka. hal sano ka badan ayaa laga joogaa markii xarunta cilmi baarista ee cisbitaalka jaamacadda Royal ee Liverpool ay bilaabeen tijaabada Molnupiravir ee bukaanada. tijaabooyin caalami ah ayaa muujinaya in kala bar ay yarayso dhimashada ama in cisbitaal loo galo COVID. si aad u hesho daawo sidan oo kale ah si aad u hesho ka hortag awood leh waa in afka laga qaato. waa waqti aad muhiim ah oo calaamad u ah daafurkayaga daawooyinka waxtarka leh ee ka dhanka ah COVID-19. UK ayaa amartay 480,000 oo kuuro oo Molnupiravir iyadoo qiyaasaha ugu horeeya la filayo inay yimaadaan dabayaaqada bishan. waxaa la siinayaa dadka leh ugu yaraan hal arrin oo halis u ah COVID sida kuwa ka weyn 60 cayilan ama qaba wadna xanuun. waxay aad waxtar u leedahay marka lagu siiyo 5 maalmood gudahood kadib marka calaamaduhu ay muuqdaan. qiimaha dawadan lama shaacin laakiin gudaha Mareykanka waa ku dhawaad $675 bukaankiiba. UK waxay ahayd wadankii ugu horeeyay adduunka ee ogolaaday tallaalka Pfizer iyo AstraZeneca. hadda xeer ilaaliyaashu waxay mar kale ansixiyeen Molnupiravir waxaana ay ahaan doontaa bila ka hor inta aan dhaqaatiirtu ogaanin waxtarka ay u leedahay wax ka baxsan tijaabooyinkeeda. laakiin dawooyinka fayraska ka hortaga ayaa u muuqda in ay door muhiim ah ka ciyaari doonaan in bukaanada COVID aanay cisbitaal gelin. imikana wararkii ciyaaraha. caawa hal kulan oo ka tirsan horyaalka sare ee Ingiriiska ayaa la ciyaaraya. Southampton ayaa hoygeeda St Mary's Stadium waxay ku qaabilaysaa kooxda Aston Villa. kulamada bari waxa isha lagu hayaa kulanka labada Manchester. haddii United ay badaysana waxay isku dhibcan noqon doonaan Chelsea oo horyaalka hoggaanka u haysa. dhinaca kalena Axadda West Ham ayaa qaabili doonta Liverpool oo ah kooxda kaliya ee horyaalka ilaa iyo hadda dhinaceeda dhulka aan la dhigin. hagaag imika waxaan u wareegayaa qabiirka BBC-da ee ciyaaraha Maxamed Axmed Dayson studio ugu la sugan. Dayson aad iyo aad baad maastaa soo dhawo saaxiib. bari kulamada jira ciyaar badan baa jira oo ognahay dabcan Chelsea waa ciyaari doonta sidaan la socono laakiin kulanka ugu xiisaha badan waa kulanka labada Manchester. ciyaartan bal isha maxaa si gaar ah loogu hayaa? isha waxa aad loogu hayaa waxaan la soconaa 10 sano ka hor in ay 6 gool ay ka dhaliyeen Manchester City ay ka dhalisay Man United tii oo kalena inay dhacayso ma u maleynay laakiin haddii aad fiiriso ciyaartii oo Liverpool ay 5 ka dhalisay sida ay ku timid ama sida ay u kala daadeen xagga difaaca waxa u malaysaa inay dhici karto laakiin ole hadda inuu ka soo kabsada ayaa u malaysaa. hagaag daawadayaasha imika waxay u jeedaan bari kulamada dhici doona laakiin ciyaarta aan aad u hore u sii galno. Man United dhibaato waxay ka haysataa xagga difaaceeda oo waxa moodaa shabaqeedu inuu iska furan yahay. waana sheegtay in Liverpool 5 gool ay kaga dhalisay gurigeeda. bari ma isbedeli doontaa arrintaas? may sida uu u bilaabay inuu 3 gadaal oo dhigo
waxaan u malaysaa sidoo hore inay kasoo fiicnaadeen laakiin markii hore wuxuu ku dheelaya 4 dambe ayuu ku dheelaya haddii inkastoo Varane uu ka maqan yahay haddana hadday 3 ku dheelaan wuu ka fiicnaa doonaa sidii hore oo sababtoo 3 ayaa gadaal u joogto mid haddii la maro mid kale ayaa jooga laakiin waxaan u malaysaa Maguire difaac ahaan inuusan fiicnayn ciyaartooyga difaac ugu fiicnayna Varane oo ka maqnaada laakiin waxaan qabaa inuu ka taxadiri doono City oo weerar ku socoto oo number 9aadna aan haysan aan ognaan laftigooda gurigooda inay Crystal Palace uga soo adkaatay haddii difaac uu galo oo iska celiyo weerar celin ayuu goolal uga dhali karaa aan ka baxna xaggan Ingiriiska waxa aad loo hadalhayaa ninkii Shaafi ay ku laabanaya Barcelona muxuu ka bedeli karaa xaaladda kooxdan ay xaaladdu ku adag tahay horta waxaan la soconaa Shaafi inuu asiga ka soo baxaba Barcelona saas daraadeedna waxaan ognaa 779 kulan inuu u dheelay 25 koob u qaaday qaranka Spain waxa la dhaw back to back 2008 iyo 2012 inuu u qaaday horyaalkaas sidii asigoo kale ayaa waxaa la rabaa inuu soo dhiso ciyaartooygii asiga iyo Iniesta iyo ciyaartooy saas oo kale inuu soo dhiso Barcelona meeshii ay joogtay oo dib ugu soo celiyo ayaa laga sugayaa waxaana ka filaynaa in Barcelona ciyaarihii lagu yaqiinay ay dib u soo cesho doonto xaggan Ingiriiska haddayna dib ugu soo laabano ninka Antonio Conte ayaa loo magacaabay kooxda Tottenham kooxdana muddo dheer koomaysan qaadin ninkana waxa ku naqaan inuu yahay nin guulo badan gaaro koob qaada Inter iyo Chelsea koob la qaaday iyo Juventus ma isleenahay Tottenham xaaladeeda wax weyn ka bedeli doona siday u badan tahay inuu ka bedeli doona Conte waxaan la xasuusnaa markuu Chelsea u yimid qaabku ciyaaradkii inuu ka bedelay taasoo oo gadaal ka dhigay 3 dambe oo ka dhigay iyo 2 difaac oo geesaha ka socota waxaan la soconaa Victor Moses ciyaartooygii la dhahay oo Chelsea weerar uga dheeli inuu numberka 2 ka dhigay Victor Moses la celi waay waxaan kaloo la soconaa Lukaku oo wadankan waxba ka qaaday oo Italy markuu tagay Inter inuu soo dhisay oo qaabkii soo bedelay haddana waxaan ognaa Harry Kane inuu gool dhalintii ay eberka naqat inkastoo habeen hore oo gool u dhaliyay kooxda Tottenham oo looga fadhiyay Conte waa nin waxa loo yaqaan winnerka loo yaqaan nin guuleysto waxaana qabaana ballankii laga qaaday waa tuu samarka imaalahay waa tuu diiday haddana haddii weeraan 4 ciyaartoy haddii loo keeno 4 uu tegi doonaa xagga Newcastle waxa la leeyahay Eddie Howe laga yaabaa in loo magacaabo kooxdaasi inkastoo laakiin ay rag badan diideen marka ma ku quman yahay kooxda maxay dadku u diidayaan kooxda inay markaasi maamulaan Mulidor sida uu sheegtay Eddie Howe ma qaba Newcastle inuu qabto Newcastle waxa la soconaa dad lacag leh inay la wareegeen ay naqato koox weyn marka laakiin waxa diiday tababarayaal waaweyn oo Omre oo kamid ah oo Arsenal macalinka ah ayaa diiday waxa kaloo la leeyahay Zidane ayaa diiday tababarayaashii waaweyn oo diidan sababtoo ilaa hadda maysan guuleysan cabsi ayay ka qabaan kooxda inay dhacdo Eddie Howe waxaan la soconaa Bournemouth inuu Premier League muddo ku hay laakiin ugu dambeyntiina oo la dhacay oo kooxdaas Serie B galiyay marka ma aha nin Newcastle lacagta la gelinaya nin booskaas ka soo bixi kara inuu yahay muumaleynayo waynu eegi doonaa deysan aad iyo aad baad u mahadsan tahay hagaag jibisada la geliyo telefoonada iyo waliba tableedyada iyo aaladaha kale ayaa yaraaday haddii aad dalbatayna waxa suurtagal ah inaysan ku soo gaarin waqtigii aad filaysay qodobadaas iyo qodobo kale ayaynu idinkugu haynaa barnaamijka Klinika Caawa Ismaan Cabdi Xasan ayaa soo jeedinaya shirkadda Yahoo ee tiknoolajiyada ayaa noqotay shirkaddii ugu dambaysay ee Maraykanka ee ka baxda Shiinaha sabab la xiriira xeerarka adag dartood. Shirkaddu waxay sheegtay in go'aankeeda uu ku yimid markii ay kordheen caqabadaha ganacsi iyo qaynuunada deegaan ee dalka ka jira. Yahoo waxay sheegeen in ay doonayaan in ay sii wataan go'aankooda ah internet xor ah oo furan. Tallaabada shirkadda Yahoo ay qaaday waxa ay timid iyadoo bishii hore shirkadda kale tiknoolajiyada ee Microsoft ay ku dhawaaqday inay ka saarayso Shiinaha adeegga shaqaaleynta ee LinkedIn. muddo ayay qaadanaysaa in la qaado taleefannada casriga iyo qalabka kale ay dadku dalbadaan ciidan Christmaska in la gaarsiiyo dadka alaabaha soo dalbada waxa suuragal ah inay waqti dheer qaataan oo xitaa sanadka dambe u gudbaan sababtuna waxa lagu sheegay jibiska aaladaha la geliyo oo yaraaday madaxa shirkad samaysa jibiska waxa uu sheegay in faraqa u dhaxeeya dalabka iyo baahida uu gaaray heerkii ugu darnaa abad meelaha qaarna in qalabka la sugo waxay qaadanaysaa 60 toddobaad miis kuwa shaaha ama qaxwaha la saaro oo 30 ilbiriqsi gudahooda ku noqon kara miis noocyada kombiyuutarada la saarta ayaa wuxuu ku guulaystay abaalmarintii ugu horreysay bandhigga abaalmarinta Lapin ee Paris waxyaabaha kale cusub ee la soo saaray ee abaalmarinta helay waxaa ku jira scooter ama mooto yar oo lagu xiri karo kursiga dadka naafada ku socdaan iyo mashiinkii ugu degdegsiyaha badnaa ee sii daaya alkoholka gacmaha lagu dhaqdo ee abid la sameeyo
mid ka mid a dukaamada saacadaha badan furan ee ugu weyn waddanka Jabbaan ayaa dukaamadiisa dhigaya robotyo shaqeeya. Family Mart ayaa la yiraahdaa dukaankaasi, wuxuuna keenay mashiin la socda badeecadaha yaalla kadibna ka buuxiya iskafaalaha dukaanka cabitaanno qabow. Shaqada cabitaanada dukaankaasi waxa ay ka tahay 3 meelood waxa ay qabtaan. Waxayna rajaynayaan marka mashiinadan shaqeeyaan inay gacan ka geysan doonaan fududaynta shaqaale yaraanta ka jirta ganacsigaasi oo dhan. waxbaa ka dhacay halkaasi. ugu dambeyntii caawa waxaynu idinkaga tegaynaa weliga ma isweydiisay sababta xayawaanka baandaha loo yaqaan midabkiisu uu yahay cadaan iyo madow oo keliya uuna ugu duwan yahay xayawaanada kale ee midabada kala duwan leh? iminka jawaabta ayaan kuu hayaa. saynis yahano ayaa ogaaday in midabadaasi ay ka saacidaan inuu ka dhuunto ugaarsiga ay ugaarsan lahaayeen shabeelka, haramacadka, eeyada iyo duurjoorta kale. dhogorta bahalkan baandaha ayaa sidoo kale waxaa la leeyahay waxay markaasi ka dhigtaa bahallada kale in ay niyad jab ka qaadaan inay weeraraan baandaha. xusuusnow wararka ugu dambeeya ee BBC Somali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka caawiya caalamka. waad ku mahadsantihiin daawashadeenna. inta aynu mar kale dib u kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. waana noo isniinta.